السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن وذا السلام يا دمانتين ميل والبود جوكتان مركو هوري هورتبل وحان الله سند ونعسن كل عام وانتم بألف خير دمانتين وحان إذن الله سند ونعسن برواقو إي خير ان وحان إذن وذا رجيني يا إلهينا إنوغو وذا بريا ان سند كان إنا قارسيو دمان أهدافتا إنو ليناهي inoonan fududeeyo inuu waafajiyana waxaan rabay wax yar inaan balyarkaada horta intaan u gelin waxaan ka codsan lahaa inaad channelka subscribe ku samaysid haddii aad already samaynin haddaad samaysayna waan kaaga mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa inta karaankayga waxaan isku dayi doonaa inaan wax ku faa'iideeyo ama aan wax kala faa'iidno aan u galo ma rabo warka inaan badiyo marka waxaan rabay inaan wax yar ka soo qaato oo anigoo daba raacaya maxay ahayday xalqadii horeetay ahayd maxaa fashiliyay Soomaaliya inaan qaybteedii labaad aan wixii aan ka oran karo ka idhaahdo haddii la yiraahdo waxaan wax yar ka oran doonaa waxa aan ka fahmay laba boog oo si dadban uga hadlaya dhibaatada iyo xaaladda Soomaaliya sida ay ku sugan tahay labadan book waxa la kala yiraahdaa the first one collapse how societies choose to fail or succeed waxaan qoray nin la yiraahdo Jared Diamond waa nin qoraa ah oo historian ah geographian ah marka buugani wuxuu ku sababaynayaa how societies choose to fail or succeed shan sababood waxa societies ama bulshooyinku ay u fail garoobaan ama ay u guuleystaan shan sababood kan koobaadi waa cimilada oo ah macnaha waxa uu ka wadaa waxaa jira bulshooyin horeeto oo cimilo dhibaato ay ku sababeen dartood u baaba'ay ama maxay ahayday systemkoodii ay haysteen markaa u burburay bulshooyinkan waxaa ka mid ahaa anasaasi qolo la odhan jirayo ay dadkii ay kasoo farcameen ama dad ay horey uga soo farcameen dadkan iminka North America tribeska ku nool qayb ka mid oo maxay ahayday dhulkii even Mayas Maya Empire waxyaalaha burburiyo waxa ka mid ahaa waxay ku ciyaareen meeshii ama deegaanka ay ku noolaayeen oo hadday tahay xaalufinta dhirtii iyo hadday tahay even ragaad guurinta ciidda ama carradii soilka hayde ay ka beeranayeen wixii ay anfacanayeen marka qodobkaani waad arki kartaa innaga dee Soomaali ahaan xaalufinta dhirta lagu hayo iyo حتى maxay ahayday inuu aad iyo aad u yar yahay dareenkeena ama conscious levelkeena bee'adeena iyo inaan ixtiraano bee'adeena u turro si inaga hadhowdii aan u anfacno oo wad arkaysa ama waa laga wada qaba dhamaan waxa ka socda khaasatan dhulka qiimaha ee Jubbooyinka iyo dhamaan Soomaali inteeda fara badan ba qodobka labaadi waa climate change-ga climate change kan cimiladu ka yara duwan yahay climate change-ga ma ahan waxay ay bulshooyinku markaa inta badan sababeen waa wax yimaada oo hadda inaga waxaad arkaysaa gobollo fara badan waxaad arkaysaa deegaano laga soo guurayo oo marka horeeto dadku ay ku noolaayeen sababta climate change-ga ama isbeddelka cimilada
berihii hore ummadii horena way ku dhaceenoo waxaad ka arki kartaa the Vikings qolihii Vikingskii ama Northern Europe kasoo farcamay ee ku noolaan jiray like Greenland waxyaalaha mataqaanaa Greenland way deganaan jireen laakiin markii dambe way baaba'een yacni way tirtirmeen waxa sababtoo ahana wuxuu ahaa isbeddelka cimilada iyo dhulkii aad u qaboobaaday qodobka saddexaad ee uu buugga soo qaadanayo ama like the qodob factorka saddexaad waxa weeyaan bulshooyinka ay ku dhaca ama keena inay tirtirmaan ama ay guul daraystaan ama ay guulaystaan inay leeyihiin daris cadaawo ah ku ah oo markaa kusoo duula oo xoolahoodana ka qaata dhulkoodana burburiya maxay ahayd ayagana isku day mar walba inay dabagediyaan marka wixii meesha ka jira waxaad arkaysaa taariikhda hore waxaad u soo qaadan kartaa ama buug soo qaadanaya like Roman Empire oo ay sabab u ahaayeen dawlado yaryar oo martaqaanay qaarkood ay ahaayeen like tribes ay meesha ka saareen taariikhdan hadda cusubna waxa u soo qaadan kartaa الخلافة العثمانية أو the Ottoman Empire أو كون 1923 ودن بيسي منطقة جريتان كذي لبتاها marka inagana waa ay kartaa hostile neighborska ama dariska cadaawaha inuu inagu aan aad iyo aad u daranahay awsan hadan wax laga gaarin laga yaababa in Soomaali iyo mataqaanaa cunsurka Soomaali la yiraahdaba uu burburo ama maxay ahayd qaab dawladahan aynu u burburo oo jiritaanka iminka aynu jirro inuu in la waayo oo hadowdii ay noqoto in nalagu kala beeriyo ama aan ku kala beero maxay ahayd ama ay sidaa inagu waayo marka factor aad iyo aad muhiim u ah inagana mataqaanaa aad iyo aad inoo taabanaya qodobka afraad waxa weeyaan in bulshooyinka waxyaalaha sababa waxaa ka mid ah inay ama guul daraysaan ama ay guul daroobaan inay leeyihiin saaxiib ay mataqaanaa ku tiirsan yihiin oo mataqaanaa taag kuleeya oo garab qabta waxay u baahan yihiin hadday tahay in mataqaanaa cadow laga dhiciyo oo marka cadow soo weeraro la garab istaago hadday tahay mataqaanaa ganacsi hadday tahay in mar ay dhibaato ku dhacdo loo soo gurmado marka inaguna Soomaaliya batatan wax allaala wax saaxiib oo ay leedahay oo qaab istiraatiiji ah ma jiraan ethnically waa aad iyo aad baan uga duwanahay dadka intooda badani East Africa Ethiopianka iyo maybe Eritreanka aad isugu dhownahay laakiin haddana luqadii iyo diintii iyo waxyaalo badan sababay marka taas waxay sababtay inaan goori u taagnaano oo carabtiina aanu ka soo yara durugnay maxay ahayd Afrikaanka kalena ayna aad shaatiga u lahuwaneyn marka meeshaas waxaad moodaa xogaa in saaxiibtinimo darro ay naga dhacday oo wax inoo soo gurmad intiisa badan uusan jirin waa arkaysaa Ethiopia iminka wax ka socda iyo adduunkii oo dhan saxaafadii inay isla kaceen oo mataqaanaa qof walba loo diraayo oo maxay ahayd rag aad iyo aad mataqaanaa adduunka like international diplomacy-ga ku leh magac la isku dayay in la xaliyo waa arkaysaa Kenya sidii mataqaanaa iyadana loo xaliyay marka saaxiibtinimo daraduna waa factor very aad muhiim ah buugana wuxuu ku sheegay qodobkiisa afraad qodobka shanaad waxa weeyaan buugani collapse how societies fail choose to fail or succeed by Jared Diamond waxa weeyaan bulshadani ama dadkan uu ka hadlayo buugu si ula falceliyaan dad ahaan macnaha like culture-koodii dadnimadoodii thaqaafadoodu siday tahay oo ay uga falceliyaan dhammaan qodobadii hore hadday tahay daris cadaawo saaxiibtinimo la'aan iyo sida ula dhaqmaan sida ula tacaayushaan ama ay u sameeyaan adaptation to all those factors that I mentioned above marka inaga wada arkaysaayo bulshadeenu ma oranayo waa bulsho xun baynu nahay laakiin haddana wax fara badan baa inugu godan oo ma ammaanin kulley sidaan uga falcelinayna ma wanaagsana waxyaalahan ama factories-kan aan buug soo sheegayo marka shantan qodobba like cimilada isbeddelka cimilada iyo saaxiibtinimo darrada hostile neighborska ama dariska cadaawada iyo
dhaqanka iyo bulshada ka falcelintoodu dhammaan waxaad moodaa inay si aad iyo aad inoogu dabaqmayaan inaguna haddeen ama taqaanaay aan wax laga qaban ama si kaleba aysan waxu dhicin ay xaaladeenu halis ku jirto buugga labaad Why Nations Fail waxaa qoray Acemoglu oo filayo inuu yahay nin Turkisha asalkiisu iyo James Robinson buuggan marka laba sababood bay buuggooda ku sheegayaan ama buugga ay ku sheegayaan oo sababta koobaad ay tahay maxay ahayd extractive institutions or basically al-anzima al-muqtasiba maxay ahayd al-anzima al-muqtasiba systemiska ku dhisan corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo boobka waddanka ayagu intooda badan haynin danta ummaddaas marka ay u talinayaan waxaa classical example ama si iska cad loogu soo qaadan karaa like nidaamyadii gumaystayaasha iyo nidaamyo fara badan oo iminka jira dhammaan Soomaaliya waxa iminka soo maraan ka jira all of them were extractive institutions iyo inclusive institutions oo cagsiga midaas oo institutionada wadamada inta badan galbeedka ka jira oo ku dhisan maxay ahayd horumar ku dhisan cadaalad ku dhisan inta badan isla xisaabtami musuqmaasuqu waa jira laakiin haddana ma gaarsiisana umana dhowaa sida nidaamyada kale ka jira oo nidaamkan kale extractive institutionska marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya haddii la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh